lana kala tegi maayo lana burburi maayo sabab loo kala tagay sabab loo burburana ma taabno alayaal walaalaha waqooyi waxaan u baaqayaa wada hadaladii aan bilowno aan ku dhiirano inaan bilowno waxba nooga bi'i maayaan nabadaan rabnaa nabadaan ka shaqaynaynaa waa la kala tegayaa iyo war Soomaaliya yaa idinku cabsi gelin nin aan hor u socotin diida waayo oo meesha aad joogtiin rabo inaan weli aaminsanahay in xurnimadeena iyo gobonnimadeena aysan kaamil noqonayn inta aanu kala maqanahay sidaa darteed waxaan geed dheer iyo mid gaaban ku fuulayaa anigu madaxweynaha jamhuuriyadda inaan midnimadaas baadi goobno annaga oo u marayna hal waddo oo keliya oo waddo labaad lahayn waa jidka wada hadalka dib u heshiisiinta iyo jidka walaaltinimada kalgacaltooyada iyo isu soo hilowga aan markale caddaynaya in albaabada wada hadalka dhankeena ka jamhuuriyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya inay awalna furnaayeen maantana furan yihiin annay furnaan doonaan ilaa hadafkaas midnimada aan ka gaarno rasuulka calayhi salaatu wassalaam ayaa ra'yi markuu keeno ra'yi kale la barbar dhigayay yaa rasuulullaahi waxyi miya mase waa ra'yi waa mugu yiraahdo tan amay ka roontahay inta la yiraahdo oo maro badan weliba tii kale u qaadanayay ninkii bini aadamka inta yimaado dadka marka ma hadli kartiin ra'yi ma yeelan kartiin waxba ma cabir kartiin waxba ma ogolaan kartiin waxna ma diidi kartiin dad 35 sano ayayna dhaxal siisay oo dhibaato iyo culays iyo meeshii maqaamkii aan lahayn dunida aan gaari wayn maanta waxaan rabnaa maqaamkan dunida ku lahayn inaan gaarno taas oo noo fududaynayo aadna noogu saaciday inaan midowno lianna tandiim siyaasi ah oo jiro oo la yaqaano oo mawaaqif leh oo heshiis geli karo oo sujiran ayaan yeelanaynaa laakiin siyaasad nin karmeed uu leeyahay keligii tooxda ah oo dhahayo waa markuu afka kala qaadana reer hebel loo dan leeyiraa waa sheegay reer hebel ajenda siyaasadeedna ma jiro tuun la isticmaalo noqday reer hebel tuun la isticmaalo oo weliba marka wax la dhibaya la isticmaalo marka wax la wanaajinayo lama isticmaalo marka magaalada joogtay siyaasadda sheegay miyiga markuu joogo marka wax la wanaajinaya in badan oo kamid la isticmaalaa laakiin magaalada iyo siyaasadda markii la yimid marka wuxuu ugu dhibayaa yaa reer hebel la isticmaalo waxaan rabaa marka maanta munaasabadan weyn inaan ka ducaysano oo aan ka dardaaranno in maxaan ku yiraahdaayey reer hebelna meelna gey weyday keligiis ragna uu meelna gey waayey meeqanimoo caam oo geesiyaal oo magaalada markay dhex marayaan magaalada dhan ay dhaqaaqayso oo madaafiicda iyo qoryaha iyo baabuurta iyo adduunyada iska daba yaacayso oo laga kala magaalada jidadka laga kala cararayay yaana soo maray xaggay ku dambeeyeen xoog waa kaasa aan shaqi haysan dalkan waxaa anfacayo institutions ama hay-adan dowladeed oo xoog leh qofaf xoog leh nama anfacayaan hay-ada dowladeed oo xoog leh xoogga ay leeyihiinna sharci ku leh sharci qaanuun nidaam ku leh oo aan shakhsiyaysnayn waayo waxaan u taaganahay oo aan rabno inaan dhiso dadka Soomaaliyeed sanad guurada 65 waxaan ugu baaqayaa ha ogolaanina siyaasad qofaysan ha ogolaanina siyaasad qabiilaysan siyaasadda dadka Soomaaliyeed ee ka dhaxaysa ninkii u arkaan inuu waddo fiican iyo talo fiican iyo ra'yi fiican ku wado ayayna raacayaan iyo maxaan ku leedahay xisbigiisa ama ururkiisa ayay raacayaan taasi waxaan ugu dardaarmayaa guud ahaan Soomaalida waxaan hambalyaynayaa inta horay u bilowday ee samaysay ee ku guulaysatay ee hor u sii socotana waxaan leeyahay annaguna waa idin soo daba soconaaye idinkuna muxuu ahay socodkiina ha gaabinina mar kale arrinta midnimada waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed marka laga hadlaayo midnimada waqooyi iyo koonfur bas maaha koonfur oo baan dhexdeeda sidee inay midowdo midnimaduna waa macno badan tahay inaan is ag fadhino keliya midkuma ahin
inaan waxyaabo kaloo ama reer ha ahaato ama koox yar hoose ha ahaatana mid kuma yihin ajando qaran inaan wada leenahay iyo hiigsi qaran inaan wada leenahay ayaa mid ku noqon karna waa sidaas sababtaa u leenahay walaalaha waqooyiga Soomaaliya 32 sano kadib ma ka daadayno mana ka caajisayno kuwii annaga naga horreeyeen way rabeen wayna raadinayeen annaguna waan rabnaa waanan raadinaynaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa walaalaha ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee midnimada awgeed u yimiday halkan sloganka ama muxuu ahay baaqa midnimada aqbalay ee halkan ku gaboobay ee qaarkood ku geeriyooday oo ay u dambaysay xildhibaan Suuri allah u naxariistee iyo intii odayaasha waaweynaa ah ee aan wada naqiino ee ka horreeyey maalinteeda ay taariikhdu xusi doontaa haddii aan la yidhaah ninkii asiga oo midnimo leh ay tii alla u timiday siduu mudan yahay maalinteeda iyo waayaheeda iyo wakhtigeeda ayaana na xusi doonaa waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan oo leh bad berri iyo bar khayraad ka buuxo baahina aan kula kornoonnahay asbaabahana haysta midnimo la'aanta ka mid ah haddaan hal cod yeelano khayraadkeedana si sahlan ayaan uga faa'iidaysan karnaa cid noo maalgelisa oo nagala shaqaysana waa heli karnaa laakiin kuwaani waa kala qaaran yihiin waana isqabqabsadeen bal aan u kaadinno 65 sanaan ku soo gaarnay baryahan waad maqlayseen in aad iyo aad loo hadalhayo dalku inuu khayraad ku jiro meel walba ma aha meel gaar maaha dalkan waa qani badda iyo barta iyo beerta waa inta aan naqaanoon aragno noo muuqata laakiin inta aanan arago noo muuqanin ka badan kana qaalisan badda Soomaaliya shidaalka baryahan laga warhayo ee la hadalhayo ee walaalaha Turkida ah ay ka shaqaynayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego 200 iyo ziyaado block ayaa badda Soomaaliya ku tahay 3 block ka mid waa waxa laga hadlayo la hadalhayo oo billions ku jira leeyahay waa 3 block 200 iyo dheeriya ayaa kan bannaan dhulka Soomaaliya intaasoo ka badan ayaan ku tanqiyadan marka laga hadlayo oil and gas khayraadka kala soo haray mineralska kala soo haray aad iyo aad u tiro badan kala duwan qaali ah kuwa qaarkood meelo tirsan oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa adduunka laga helaa sabab aan fakhri u ahaanay sabab aan macluul ugu dhimanahay ma jirto oo aan ahayn dabeecadeen iyo dhaqankeen iyo dhiiranaan la'aanteen waay habsi in leeskin balaayaa dhacayso haddaa inta u dhaqaaqdo dalku waa dumaya haddaa xaqa u dhaqaaqdo badaa inta kasoo butaacayso haddaa xaqa u dhaqaaqdo waa la kala tegaya wax jira maaha mar horaan kala tegayna danka maanta maalin aan ka liidano oo badan aan soo marnay waana kala tegi weyne waana nala qaadan waaye waana la boombi waaye maanta maalmihii lasoo dhaafay oo dhan maantaan ugu roonnay inaan joognaa ugu fiicnay dowladaan leenahay caalamku aqbalay si sharci oo qaanuuni ah xuquuqdeeda inta ku raasata ku soo dhacsanaysa maanta maalin oo waana la kala qaybsanaa iyo waana la kala qaadanaa iyo dibaa loo noqonayaa iyo dalkaa burburaya iyo waa la kala tegayaa iyo war Soomaaliya yaa ladinku cabsi gelin nin aan hor u socotiin diida waayo oo meesha aad joogtiin rabo lana kala tegi maayo lana burburi maayo sabab loo kala tagay sabab loo burburana ma taabno horaa wuu soconayaa baryahan waxaan dowladda federaalka ka shaqaynaysay goglo nabadeed wada tashi isla tashi ayaan ka shaqaynay meel fiican ayay marayaan niyad samaan badanaa ka muuqata
dowladduna way samaysay dadkii Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta iyo madaxda ahay ee kala duwanaa ee goglaha ka soo qayb galayna waxay muujiyeen niyad samaan badan ka muuqatay dhiirigelin badan annagana inoo siisay goglahaasi way socon doonaan ma la soo xiri doonaa inta qof Soomaali oo ra'yi qabo oo ra'yigiis in la dhageysto oo rabo uu jiro waa furnaanayaan goglahaas haddii ra'yigiisa waa la dhageysanayaa ayadoo qadarin ay ku jirto wixii suurtagal ah oo maanta noo suurtagal ahna waa laga qaadanayaa waana la dhaqan gelinayaa wixii berri suurtagal ahna berriyaan la sugaynaa wixii shalay nagu habboonaay oo ka soo gudbinayna waxaan leenahay waa shalay waa ka soo gudubnay waa gadaal u noqomayn cabsigelinta ha la daayo mar kale waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo sanad guuro wacan sanadkan iyo sanadka dambe iyo sanado ka sii dambeeya intaba nabad iyo baraaro iyo barwaaqo aan ku gaarno sanadba sanadka ka dambeeya waa ka sii fiicannahay marqaatiyana laga wada yahay sanadba sanadka ka dambeeya inaan ka fiicannahay sanadkaanna waa fiicannahay sanadka dambe waa ka sii fiicnaanaynaa lagaba yaabee midnimadii horumar badan laga sameeyey oo maxaan ku dhahaa wada xaajoodkii dib u furmeen oo wadahadalkii dib u furmeen inay bilaabato waxaan leeyahay walaalaha waqooyiga ayagana markooda dhiirada midnimadu wax ma bi'isee awood iyo haybad iyo sharaf ay soo kordhidaayeen dhiirada shalayba adinkaa dhiirateen maantana dhiirada annaguna waxaan diyaar u nahay wixii idin dhaqa oo midnimadii inaad nala qaadataan suurto gelinayaa bannaanka naga yaado hadday talo tahay hadday qofkun tahay hadday maxaan ku dhahaa ra'yi kala tahay bannaankii naga yaado bannaankaan la taagana aan leenahay aan isu nimaado aan ismaqalno aan isdhegaysano aan wada hadalno camal walaal camankowgana carabkana looga bixiyaa walaalka hadduu kuu caro xoogaa yar waa camankow kuu buuraa laakiin markaa la hadasho carabkaa looga bixiyaa waayo marka la hadlo waa la isfahmayaa walaalayaal walaalaha waqooyi waxaan u baaqayaa wada hadalladii aan bilowno aan ku dhiiranno inaan bilowno waxba nooga bi'i maayaan nabadaan rabnaa nabadaan ka shaqaynaynaa waana idiin muujinay inaan nabadda jecelnahay kana shaqaynayno haddana horeyaan ugu sii soconaynaa xal nagama jiro dowladnimo nagama jirto sharaf iyo karaamo nagama jirto midnimo nagama jirto qoraga caaradiisa carabkeennay naga jirtaan inaan wada hadalnay naga jirtaan inaan isu garaawnay naga jirtaan inaan hadallada xanaftale iyo warka xunoodan iska dhowrnay naga jirtaan inaan maxaanku idhahdayey wada fadhiisanno ayay naga jirtaan waana wada fadhiisan doonnaan